Ataturk ninka caanyahan ah qoraa ah iyo budhigihii jamhuuriyadda casriga Turkiga nin dalweynaha Turkiga ee isku haya koonfur bari Yurub iyo galbeedka Aasiya nin wax weyn ka bedelay siyaasadihii Cismaaniyiinta iyo nidaamyadii guud ee dabcan u horeeyay ee jamhuuriyaddaas muuqaalka kan waxaan ku lafaguri doonaa sooyaal shakhsiyadeedka aabihii iyo sidoo kale aasaasihii jamhuuriyadda casriga ee Turkiga Mustafa Kemal Atatürk waxaan hay Idruus Iman halkani waa Somali Freedom kusoo dhawaada sheekada tan sanadii 1881 ayuu dhashay Mustafa Kemal Atatürk wuxuu ku dhashay deegaanka la yiraahdo Salonika oo hadda loo yaqaano Thessaloniki oo Gariiga ka tirsan wuxuu ku dhashay guri casaan ah oo ka kooban 3 dabaq oo ku yaala Islahanet Street Kokasim waqtigii uu dhalanayay waxay ka tirsaneed boqortooyadii Cismaaniyiinta qoyskiisuna waxay ahaayeen dabaqad dhexe oo ku hadla afka Turkiga sidoo kalena muslim ahaa aabihii wuxuu ahaa sargaal military marna wuxuu ahaa karaaniga aasaasiga ee diinta wuxuuna ka ganacsan jiray alwaax waxay ku abtirsadaan reer guuraa Turki ah taariikhyahanada qaarkood waxay aaminsan yihiin inuu ka soo jeedo qowmiyadda Macedonia hooyadii Subaydi Hanim waxay ahayd gabar reer Turki ah waxayna degaan magaalada Langaas oo u dhow Salonika Atatürk isagoo 12 jir ah ayaa loo diray iskuulka militariga yaraantiisii wuxuu ahaa arday wanaagsan oo indho buluug leh iyo timo qurxoon sida la sheegay markii uu qaangaaray wuxuu ku biiray ciidamada wuxuu waxbarashada ciidan ku qaatay iskuul taxane oo kala leh heerar kala duwan ugu dambeyntiina wuxuu ka qalin jibiyay akademiyadda dagaalka Istanbul sanadii 1905 bishii May 1911 wuxuu bilaabay inuu ka hoos shaqeeyo taliska guud ee ciidamada dawladda Cabbaasiyiinta wuxuuna horjooge ka noqday dagaalkii looga soo horjeeday Talyaaniga ee Liibiya wuxuuna ku guuleystay dagaalkii wuxuu qabtay magaalada Tripoli kadib waxaa loo magacaabay jabhadda Derna oo uu ahaa taliyaha guud 6 Maarso 1912 dagaalkii Balkan 1912 ilaa 1913 Mustafa Kemal sumcadiisa hogaamineed ee ciidanka ayaa sare u kacday waxaa loo dalacsiyay gaashaan la dhexe dagaalkii koobaad ee dunida 1914 ilaa 1918 waa lagu jabiyay boqortooyadii gabowday Cismaaniyiinta waxay lumisay dhammaan dhulkeedii Yurub iyo Afrika ee xukunkeedii ku hoos jiray dhibaatada labaad ee ku dhacday waxay ahayd in la soo weeraray Turkiga si loo qabsado Mustafa Kemal wuxuu noqday geesi ka difaacay Turkiga Ingiriiska iyo Faransiiska ciidamada badda ee Ingiriiska iyo Faransiiska waxay ku guuldareysteen inay ka gudbaan marinada la qorsheeyay ee Dardanelles iyadoo ay la kulmeen khasaarooyin culus 1915 Mustafa Kemal waxaa loo dalacsiyay korneyl buuxa guusha weyn kadib uuna difaacay qaranka Turkiga halku dhigiisu wuxuu ahaa kuma amray inaad weerar qaado waxaan ku amrayaa inaad dhimato wuxuu bedelay dareenka jabhadda Mustafa Kemal waxaa loo dalacsiyay sareeyo guuto waxaa loo magacaabay taliyaha guud kooxda Hilaac 31 Oktoobar 1918 markii la saxiixay heshiiskii lagu magacaabayay Modros markii la tirtiray kooxdan ciidan kadib waxaa loo magacaabay inuu ka howlgalo wasaaradda dagaalka ee Istanbul 13 November 1918 guushii dagaalkii Sakarya golaha shacbiga ee qaranka Turkiga wuxuu Mustafa Kemal u dalacsiyay darajada Field Marshal oo ay u siiyeen magaca Gazi dagaalyahankii guusha Mustafa Kemal wuxuu ahaa halyeygii badbaadiyay deegaanada af Turkiga looga hadlo in la kala qaybiyo waxaase la yaab lahaa in dawladdii suldaanka ee Istanbul waxay dil ku xukuntay Mustafa Kemal isagoo maqan laakiin way ku fashilantay oo wuxuu noqday badbaadiyaha haraagii inta af Turkiga ku hadasha Mustafa Kemal waxa xaran u ahayd Ankara Mustafa Kemal wuxuu caawinaad ka helay dawladdii Soofiyeedka ee Ruushka Mustafa wuxuu ku hanjabay inuu weerari doono Istanbul halkii lagu dagaalami lahaa Ingiriiska wuxuu go'aansaday inuu Mustafa kala xaajoodo heshiis nabadeed wuxuuna casuumaad u diray suldaanka iyo Mustafa Kemal
suldaankii u dambeeyey ee boqortooyadii Cismaaniyiinta ayaa ka carray qasrigiisii isagoo u baqay naftiisa. heshiis nabadeed ayaa markaa la saxiixay bishii Luulyo 1923 heshiiskaas oo lagu aqoonsaday dowlad madax bannaan oo Turkidu ay leedahay. bishii Oktoobar 29 1923 baarlamaankii weynaa ee qaranka ayaa ku dhawaaqay Jamhuuriyadda Turkiga waxayna u doorteen Mustafa Kemal madaxweynihii ugu horeeyay ee Turkiga. markii uu madaxweyne noqday wuxuu taageeray warshadaynta Turkiga iyo abuurada dhaqaale. wuxuu bedelay dhammaan hanaankii dowladeed ee boqortooyadii Cismaaniyiinta wuxuuna qaatay hanaan cusub. waxaa ka mid ahaa madax banaanida haweenka. wuxuu raacay siyaasadda dhexdhexaadnimo isagoo xiriir saaxiibtinimo la yeeshay dalalkii dariska la ahaa Turkiga. 8 sano kadib dowladda Turkiga waxay ku biirtay League of Nations. waxay hagaajisay heerarka akhriska iyo qorista. waxay siisay haweenka inay wax dooran karaan. dalkana wuxuu ku soo rogay in hal xisbi dalka maamulo. wuxuuna xiray dhammaan wargeysyada mucaaradka. wuxuu caburiyey shaqaalaha bidixda. wuxuu meesha ka saaray isku day kasta oo lagu doonayo ismaamulka Kurdiyiinta. sanadii 1935 dalka Turkiga waxaa loo bixiyay magaca Ataturk oo macnihiisu yahay aabbaha Turkiga. Mustafa Kemal Ataturk 10 November 1938 ayuu geeriyooday. wuxuuna ku dhintay qolkiisa jiifka ee ku yaala daarta lagu magacaabo Dolmahabs ee magaalada Istanbul. hagaag daawadayaal, halkan waxaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkii aan ugu xog warramaynay sooyaal shakhsiyadeedka Jamhuuriyadda Turkiga ninkii bud dhigay Mustafa Kemal Ataturk. xogo iyo macluumaadyo xasaasi ah oo ku dhex jiray muuqaalka ayaa daawateen. intaan dib hawada ugu kulmi doono dhammaanteed oo isku duwan waxaan idin leenahay nabaadiino iyo nooli kulanti dambe xiiso leh.